السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكوسو دواتان ياسكا برو ياسكا انت بدن waxaa dhaco caqabado qofka markuu garan ka soo dagayo horta halkan joogna xageen joognaa noo sheeg bal bulshada bayaan hadda maartay deeq waa maasan tahay hadda waxaan joognaa maartay elborka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota MSB markii la dhaho magac loo soo gaabshanay waa maartay Minneapolis St. Paul Airport maanta maartay dadka markay cusub yihiin ama ay soo dagaan waxyaabaha looga baahan yahay aan halkan ka hadli doonaa hadii qofka uu maartay baabuur haysto iyo hadii la soo doonayo iyo markii ugu horeyso markii oo soo degto halka uu maartay ka doonanayo maartay boorsooyinkiisa halka uu raadsanayo markaas aan ka hadli doonaa okay qofka garoonka ka soo degay diyaaradii garoonka ka soo degatay maxaa qofka looga baahan yahay marka ugu horeysaba soo degaa inuu talaabooyinka uu qaadayo maxaa u horeeya marka ugu horeyso horta diyaaraddu ka soo dego wuxuu ku soo baxaa geedka ku soo baxaa markuu soo baxo adeego maartay 2 daqiiqo 3 daqiiqo amal soo soconaa markii dambe diyaaraduhu waa labo kuwa international iyo kuwa local kuwa international marka ku soo degto kala tood qofka siita toos laabtiisa u socoto waxay imaanaysaa halkan had taaganahay oo boorsooyinka markii uu maartay marka qaar waa lagu dhamaa elborka waa weyn yahay marka dadka waxaa jira dad caawiyo oo shaqo ku leh oo maartay kuraas wato ama markay dhumaan oo kale toosiyo oo waraaqada haysto halkay u socotaa oo maartay meel kasta mid ka hadu tagin oo kale tood oo meesha ka maqan oo kale tood wuxuu ku leeyahay meesha siita front desk u tagaysa markaas uu ku sheegi doonaa halka u socoto iyo boorsada halka ay ku degayso mararka qaar waxaa dhacdo maartay diyaaradaha localka oo kale markay imaanayaan ayaga boorsooyinka meel gaar ay kaga soo dhacaan ama geed yar maartay number 6 number 2 number 5 number 6 oo kale tood ay kaga soo dhacaan marka saas darteed wuxuu ku qasbay qofka inuu geedadkii ama maartay meeshii oo ka soo degayo uu dhaqsi u tago si aan boorsada looga qaadin mararka qaar waa la saxdaa oo boorsooyinka waa la qaataa marka saas darteed qofku wuxuu ku qasban yahay inuu early soo baxo yimaado wixiisa sugo marka uu qaatana hore u deeyo ma fahamtay okay dadka waxaa jira dad soo dhaweynaya qofka imaanayo dad uu imaanayo oo ehelkiisa asxaabtiisa sax xagee ku sugayaan taas horta maartay meel waxa jirto oo waiting listiga ama waiting maartay kuraas meel taala jirto kuraas si taclishan fadhiisanayaan ay ku sugayaan dadka oo maartay meel oo waxa yaalo maartay dadka ku soo degay ama ku baxayo kala tood ku baxada kor waay ku soo degayaan hadda maartay qaybta hoos waay hadda qaybta hoos aan joognaa inta marka qaybta hoos waxay leedahay meel lagu sugo oo boorsooyinka iyo maartay iyo qofka soo degayba ay ku sugi karto iyo fadhiya leedahay marka fadhiyadaas dadka iska fadhiistaan ee maartay ku sheekaystaan ee waqti ku sii qaataan inta qofkii ay sugayeen kala imaanayo okay maanta ani adiga ajenda u imaanay garoonka si fiican ajendaha u imaanay maanta muxuu ahaa ajendaha umaan wuxuu ahay maartay waxaan soo dhaweynay fanaanka caanka ee Omar Barbar ee fanaanka reer Canada fanaankaas soo dhaweynayna oo waliba maartay ilaa hadda aan sugaynaa oo waa u maqan yahay inta uu ka imaanay aan sugaynaa marka asigana naftigiisa in la soco u baahan yahay marka meesha uu soo degayay maadaama asiga maartay local uu soo degayo marka qaybta localka aan taaganahay wali international ka mana tagay sababtoo ah siga safarkiisa ugu horeeyay wuxuu ku soo degay Ohio hadda soo socdaalay hadda maartay Minneapolis soo socdaa markaas darteed meesha ku suginaa mararka qaar marka waxaa dhacday waalidiinta ama dadka waaweyn ee maartay Soomaalida inay dhumaan ama boorsooyin ay ka dhumaan boorsooyinka dhumaan maartay elborka ay kaga dhaxdhumaan ay iloobaan markaas darteed barnaamijkan aan u sameynayna inaan u duubno oo aan u xasuusino caqabadihii aad kala kulantay maxay inta badan yaasiin garoonkan waa imaataa dadka caanka marka imaanayaan waa ku soo dhaweysaa shaqadaada waxay tahay dadka inaad soo dhaweyso oo macnaha waxaa tahay wariyaasha magaalada Minneapolis ugu weyn sabiican caqabada aad kala kulantay ma jiraan waa jirtaa inuu caqabada aad kala kulmay elborkan iyo elborka la toddobo ma aragtay oo Chicago Illinois ku yaalo marka ugu horeyskan maalmii aan ku cusbaayo kala tood waa la yaabi jiray meesha soo galay meesha ka baxay ma aqaan jirin gacanta la iga qaban jiray ma fahamtay mararka qaar dadku waxay ku leeyihiin maartay hadda maartay dadka ku baxayo kala kor waa ma hano ku bax markay kor tahay ani kor atiga jiro in soo degitaan ka umlinay ku baxay idoo korta aan soo degitaan umlinay soo degitaankiina waxa umlinay maartay ku baxay qof wali aad soo dhaweynaysay adigoo saas oo kale u khaldamay oo arrivalki aan imaaninoo oo kor tagay qofkii iska baxo macnaha garoomis weyseen maalnay u dhacdaa صح نن حلوان إيمانه قولوي هو أنا قاعد أدري يا بناك سعلي بناك سعلي مريض ما الله لو حنا أساس ماهن نواس كلنا ده مكان يوسف صرت ترال النقاء أبو الجزء كسينا مركز هذا هوش دب قلنا وايو ده سيدي علشان هوش قلنا هذا الحمد لله واحد من ما فهمتين متى كلت البورك جيكاكو إلينوي والبورك وين البورك لبعض أمس دحد واي أمريكان كبرت له في شو جورجيا أتلانتا جورجيا وين نيويورك يو مارتي جيكاكو إلينوي سيد هذا مارتي أمريكان كوا وين يو تكساس دالاس marka ani jikaaka ku dhacay ma fahanti jikaaka marka ku dhacay
terminal 1 terminal 2 ma arag saacad انت وسعنيس وقت ايه برتا وقت فربضان ترى ما راعيسا ما artay geedaha hoos maraan waxa way haddana luqluq buul camlo luqluq way waxa way geedka ka baxay way geedka ka bixis 5 saacadood transit haysta 4 saac kamid waa raadinay markaas waxaana ina cunto cun inaas markaas adiga safar aha ana safar ahay markaas ita ma fahamtay marka kaasa aan igu darnay waliba midka Illinois 4 saacadood kamid geedkan ku socda raadinay garoomada ay kala duwan yihiin si fiican adduunka garoon kasta marka aad ku cusub tahay waa ku wareeri صح waxyaalo common ay ka sameeyeen hina jirto sida wax aan la wadaagi lahayd oo faa'iideyn lahayd ma jiro waxaan ka sheegi lahaa dadka waqtiga inay ilaaliyaan diyaaraddu ma ku sugayso diyaaraddu mar walba way soconaysaa dadka diyaaraddu waxa ugu badan dadka ka tagto waa diyaaradda iyo waqtiga marar qarqara hurday mar qarqara aleeshan inay meel iska fadhiistaan telefoon dhiga iska gashanayaan waa la yeerina moogta waqtigoodii la dhaafaa marka saas darteed waqtiga hal ilaaliyaan dhihi lahaa waqtiga ugu daran waqtiga diyaaradda ku dhaafto laga yaabo waqtiga saacadaan oo kale diyaaradaha waxay soo baxaan diyaaradda ugu dambaysa 7 ama 6 soo baxaysaa 7 ama 6 markay soo baxdo diyaarad kale habeen oo kacaysa ma jirto diyaaraddu soo horeyso diyaaraddu soo horeyso waxay kacaysaa 5 ay kacaysaa ama 4 ay kacaysaa marka 5 iyo 4 da kacaysa marka maxaa isku dhibay marka waayee inta badan dadka waxay ku waraaraan geedka qofka uu ka baxayo sax marka tigidka markuu qofka soo qaato ama xaguu ka ogaanaya geedka uu ka baxayo waa la fududeeyay hadda check up maxaa ka samayn kartaa mobilka ka samayn kartaa geedka ka bixisid iyo maartay body bus iyo wax dhan meesha laga wada siinaa haddii aad rabtana elborka ima kartaa waa saaraysaa isla markii body bus ku soo baxayo body bus kana isla markii waxa ka helaysaa meesha body bus electronic scan dag isla markii ku soo baxa sida uu dhaqsiya badan hore meesha ka bixilada ka helaysaa ma fahamtay aad iyo aad ma san tahay kaas wuxuu ahaa saaxiibka Yaasiin oo khabiir ku ah xagga garoomada dad badanna soo dhaweeyo dadka sii baxayana sii sagootiyo shaqadiisaba ay tahay barnaamij lamid intaan ka kulmayno barnaamijkan waxaan kaga tageynaa wixii adiga aad nooga tagi jirteen